وبركاته وعن ونكسن إذا هنتي ملك استوى أنك داور إنسان داوديال كسر هذا برنامج جارة وأن تضبط كني أنكود كويجينو دوين لو سميي بقر برهان بقر موسى وصعدال قابن كمريا مقالة مينيابوليس iyadoo boqorka ay soo dhaweeyeen qaar kamid ah jariirada Soomaalida ay ku dhaqan magaaladani boqor burhaan boqor Muuse ayaa socdaal kala duwan ku mariyay dhawaanahan wadamada ay Soomaalidu inta badan degan yihiin ee qurbaha waxaana wadankii ugu dambeeyay soo gaaray ahaa wadanka USA Mareykanka waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladani waxa barnaamijkan aan ku soo qaadanaynaa khudbadii uu soo jeediyay boqor burhaan boqor Muuse iyo qaar kamid ah jaalida Soomaalida oo halkaas ka jeediyay khudbada aad u qurux badan xafladani oo ahayd mid aad loo soo camiray ayaa boqorku waxa uu sheegay in sidaan oo kale lagu soo dhaweeyo wadamada Yurub balse magaalada Minneapolis ay ku soo dhaweeyeen dadkii ugu tirada badnaa hadaba barnaamijkani aan ku soo qaadanayno qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay xafladani oo halkan ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa maadaama dhinaca dhaqanka ay arintu u janjeerto oo maanta la isugu yimid in dhaqankii Soomaalida soo nooleyntiisii in qayb aan ka qaadano sababtoo ah isimada dhaqanka iyaga haya iyaga tarjubaanka dhaqanka wanaagsan baana laga hadlayaa marka dhaqanka suuban oo Soomaalida in dib loo soo neeleeyo waa arrin muhiim ah oo dhamaantay aan u baahanahay dhaqamada xun oo waayahan dambe dadka qaar ay barteen Soomaalidu ma wada baran qaar baa bartay inaan iska dayno oo meel iska dhigno marka insha Allah hadda waxa ku xiga oo idinku yeerayaa ugaas Maxamuud Canshuur ku soo dhaw inta kadib sidii la inooga bartay aynu dhaqanka u lahayn hadaynu reemaana soo dhanahay baa caawa hoolkan ka muuqda waxaynu si kalsooni iyo kalgacal ku jiro u soo dhaweynaynaa caawa boqorkeena aynu jecel lahay ee isagoo inaga maqan aynu xafladii quruxda badnayd u qabanay ee aynu ku taageersanayn ee doorashadiisa aan ku ayideynay boqor Burhaan boqor Muuse boqor Yuusuf waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya codkii magaciina haddaad reemana soo dhatihiin iyo aniga oo Maxamuud ah codkaygii boqor soo dhawow baan ku leenahay caleemo qoyan iyo qalbi furan baanu kugu soo dhaweynaynaa runtii waan furayaa oon hadalka inaan ku dheeraado ma doonayo waxaan kor marayaa dhaqan muxuu yahay baan leeyahay waa la iga dambayn doonaa oo dabaday rag baa ka hadli doona balse dhaqan muxuu yahay ninka dhaqanku uu siyaasiba ma qabiilba ma nin koo haysta aba ma nin gobol ka yimid ba oo gobol ku eg dhaqan muxuu yahay ninkaas waa boqor waa suldaan waa ugaas waa waxaasaynu maqalay waxaan u malayn dadku inaynan way uun maqleen dhaqanku yar hor joogay inuu yahay dareen ahaan way qabaan laakiin dhaqanku wuxuu yahay ma fahansana ninka dhaqanku oo qabiil ma aha inta aan sheegay midna ma aha gobol ma aha kooxna ma aha boqor Burhaanow waxaa timid gurigaagii dadkaagii caawa gobolkaagii baad fadhidaa marka wax yar hadalka soo koobaa la yidhi marka waa soo koobayaa waxaan marka taariikh yar ka taabanayaa boqortooyada yani in yar ka taabanaya horta boqortooyadan waa boqortooyadii 34 oo maanta Burhaan loo caleema saaray boqortooyadaas markeedii hore markay mar dhaxa marayso wadanka waxaa soo galay qarbi wuxuu bilaabay inuu boqortooyadii la galo sheerkaasoo ku saabsan boqortooyadaada baanu aqoonsanaynaa marka waxaan doonaynaa inaan mucaado gallo ayaa nimankii qarbiga ahaa ku salaameen wuxuuna ugu jawaabay
annagu waxaanu nahay Soomaali wixii Soomaali tahay baanan ka mid ahay boqortooyadayduna waa mid Soomaaliyeed ee mid qoys maaha waa kaga tageen dawlad kale haddana timid sidii oo kale ula tagtay waxuu ku yidhi ilaahay weel ballaaran hadduu ku siiyo weel yar wax laguma agbo ilaahay Soomaali buu uga dhashay waxaan Soomaali ahayna ma doonayo boqortooyada Burhaan caawa uu ka socdo waa boqortooyadii Soomaaliya waagi loo bixiyay magaca la yiraahdo dhulka udgoonka boqortooyadii jirtay ee caalamku u imaan jiray ee ka hortagi jirtay ee la hadli jirtay boqortooyada halkaas ay taariikhdeedu joogtaa boqortooyooyinkii hore ee Soomaaliyeed boqortooyinka ugu horeeyay ayay ahayd Burhaanow ku soo dhawow intanoo Soomaaliya oo adiga caawa halkaas inay kugu soo dhaweeyaan u timid intaas ku soo dhawow qalbi furan iyo qalbi yani mataqaanaa ku soo dhawow intaas waxaan ku darayaa Burhaanow ninku hadduu isin noqdo oo isin uu noqdo boqor ah hadduu muslim yahayna inta muslimka ayuu boqor u yahay hadduu gaal yahayna inta gaaladu boqor u yahay adigu inta muslimkaad boqor u tahay meel kasta ha joogeen khaas ahaanna Soomaali baad boqor u tahay Soomaali baad boqor u tahay khaas ahaan bismillahir rahmaani suuradii al-baqraadi iyo bara aayadaheedii qul a'uudu billahi baan wafdigiisa ballaaran iyo boqorka aan ku salaami burhaan waan barinee burhaan waa barnoo barwaaqaanu qabnaaye barbarkii dhinaciina bulshadiisu nabad maaha bay dardaaranahoo iyo ducaa ii barbartaalla rabbi baan baryayaa mid ilaah barakeeyo baaba'a ummaddeeniyo burburkeennu dhibaayo baadidoon u dhaqaaqa gacalkaa kala baaday inba baal ku go'doontay bulshada isu keena oon ku baraarnaahaw mid cadaalad bineeya ummaddu wax kale uma baahna dadku cadaalad bay u baahan yihiin qabiilkani waxaan nagu salday waa cadaalad ijtimaaci ayaan u baahnay mid cadaalad bineeya ilaahay iska baqaaya geesi aan barbariiqan oo bareerihiisu cad yahay wiqii baadilka qaadan oo xaqa geesu ka baydhin boqor caadilahow saqi deeq bixiya uumiya inta baahan baradii isku hirtaan oo baydkiisa ay hadhsadaan mid baxnaanshahaw haddii uun kala baydho bah iyo hayb atirsiimo dadku beela noqdaan midkii baawar awood leh kan qabiilka ku baana burjuwaasi ha raacin danyar baale gargaar sabool baa barakaysan ilaahay ballankii iyagaa la badbaado aakhira aad ku badhaadhi weligaa barbar joogso oo birta ay cuskadaan iyo barroosinkooda ahaw intaa waxaan leeyahay boqor Burhaan maansada tani waxay ka mid tahay halgamada aan ugu jirno si aanu uga qayb qaadano takoorka tirtiridiisa waxaa la yidhaahdaa haddii dayn kugu raago iyadiyada waa la baxshaa cismaan aad buu u mahadsan yahay laakiin wax kaloo ma hadda ka gedisan buu u baahan yahay mana xaqiiqduna saas way soo gaabinta waa jeclaan lahaa inaan u daayo caawo dhan oo wado sababtoo annagoo dhan waana taabtay waana hawl loo baahan yahay wax laga qabto Soomaalidu badankoodu meel ka bilaabaan ay garan waayeen laakiin meel un laga bilaabo wixii la bilaabaa dhamaadee haddaan la bilaabin weligeed dhammaan mayso marka meel un laga bilaabo qof kastoo taageeri kara hawshaasna qayb ha ka qaato qof walba adigu naftaada ka bilow hadda waxaan ku soo dhaweynayaa oday cuqaasha magaalada ka mid ah Cabdigaas Khaliif Fiqi Faarax soo dhaw Cabdigaas
boqorka waxaa sharaf u ah inuu soo booqdo dadkiisii u soo haajiray dunida dacaladeeda isagoo hadda Yurub iyo North America soo maray boqorka waxay taasi cadaynaysaa hogaamiyenimadiisa in uu dareemay markii la caleemo saarayba in qaybo ka badan oo kamid ah dadku hogaamiyaha u yahay inay u haajireen dunida dacaladeeda loona baahan yahay inuu la qaybsado nolosha intii uu awoodi karo soo booqdo warbixin siiyo waraysto la qadeeyo la casheeyo boqorka sharaf weyn bay u tahay intaas waxaan leeyahay boqorkeennii boqor soo jireenow boqorkii dalkaygow boqorow burhaanow boowe soo dhawow waxaan leeyahay intaa ka bacdi boqorow burhaanow waxaa la sheegaa boqorradii SYShii sayid cabdilla xasan raggii hore waxay soo qabteen haddama waxaan taagnaanaynaa rag soo shaqeeyey oo wax soo qabtay oo wax ahaa miyaanu weligeen taagnaanaynaa aawa annaka boqorradayada iyo jiilkayaga iyo raggayaga hadda jooga waxay qaban lahaayeen ayaanu boqorkii oo maanta rabnaa boqorow burhaanow ilaahay ha kula qabto hawsha iyo xilka lagu saaray ilaahay ha kula qabto allaha kuu fududeeyo daacad allaha kaa dhigo ilaahay haddaad ku tiirsan tahay waxba kaa bi'i mahayaan boqorow boqorradii hore dawlad dhisan iyo dal dhisan yay ku mushaaxi jireen oo hoos ka wadi jireen waxa ay leeyihiin oo arrimahooda ah laakiin boqor burhaan maanta meel daad qaaday ma leh wax u taagan oo wax ka qabanaya oon adinka maanta ahayn ma ay jiraane taa ku tasho boqor burhaan waa inaad istaagtaan dawladdii waa aragteen dadweynihii waa aragteen soo hodaminaheennu meel walba waa meeshoodii baddu waa meesheedii ma ay guurin ma ay jajabin waxa jajabay waa dadka Soomaaliyeed oo aqli ahaan caafimaad ahaan dadnimo ahaan waa iyaga waxa baaba'ay oo burburay waxana ha ka suginina intiina caafimaadka qabta ama intiina maanta taagan oo wax garanaysa waa inaad istaagtaan oo wax ka qabataan boqor burhaan aad baan looga hadlay caawa inaan dad badan oo siyaasiyiin la soo dhaweyn jirnay laakiin aad tahay boqorkii ugu horeeyay ama traditional leaderkii ugu horeeyay oo noo yimaada aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno aadna aragto nolosheena iyo meeshaan ku noolnahay inkastoo jeclaan lahaa xilli baraf badan u yaal inaad noo timaado si aad nooga wargeyso ilaahay ha ku garab galo ayaa dadku u batay ilaahay ha ku garab galaan ku leeyahay baaba aad jira oo dhinac walba leh oo waddankeennii ka jirana waxaan leeyahay haddii aan u laabano dhaqanka kaashana diinta islaamka wax badan baa iska bedeli kara waddankeennii waa jecelnahay waddankeennii dadkeennii midnimadeennii walaalnimadeennii inay dib u soo laabato ilaahay baan kaaga baryaynaa inay intaasoo dhan suurtagal kuu noqoto inaad cid aad la kaashato hesho adiguna ay ku jirto maskaxdaada inaad fakarkeenna qaadato dadka halkan fadhiya oo Soomaaliyeed waxay aad uga go'an qof kasta oo mas'uul ah jecel waddankiisa dadkiisa inaan si wada jir u soo dhaweyno inoo diyaariyay waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo mahad u celinayaa boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf boqor cismaan sida weyn ee uu inoogu yimi ee uu hordhac inoogu yahay in badan baa laga sanqadhiyay inay dadkii inoo iman jiray ay ahaayeen
dad siyaasiyiin ah laakiin waxaan leeyahay ilaahay ha inooga dhigo furihii madax dhaqameedka burhaan oo uu inoo waday inay madax dhaqameedkii kale ee maqnaa laftoodu iyaguna ay inoo yimaadeen oo ay inoo yimaadaan inkastoo qaar kale oo hore ay inoo yimaadeen sida garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo kale oo hadda ka hor isaguna halkan inoogu yimi in ay garaadada kale iyo salaadiinta kale iyo ugaasiyada iyo maxaan dhahdaayey malaaq iyo weber iyo beeldaaje iyo islaan iyo dhammaan inay wada yimaadaan hada gabay haween baan ka ahay sida hubashayo halabuurka maansadu raggu haybadiis yahaye ha yeeshee waxaan hibanayaa galay halkeediyo hiyigaygu wuxuu doonayaa inaan hikadshaye salaan suubanoo saafiyo siga laga dhowray sambabada wadnaha iyo ka timid sabadyadii beerka soo saaftay jiirkayga oo sinad iyo muuqle sumbax iyo udgoon lagu matalo saxan saxo hodhay sinada iyo quruxdana nafluhu wada sarqamayo oo sari iyo hoos wada socdiya saka eega hooya soo dhaweyn baraara iyo farax bayda laga saaray soo dhaweyn baraara iyo farax bayda laga saaray qalbig beer nugayliyo kalgacal badiyo xaxiya kalgacayl qalbi beer nugayliyo kalgacal badiyo xaxiya burji haybadiyo baawir adag 100 kuno baaca cirka baacis leegoo dhulkii qadar ku bandheeyey baryadii ilaah aanu galay leylka barihiisa oo badiya buuraha ka weyn boqor burhaan qaado lakigeedu waa badan yahay boqor burhaan qaado lakigeedu waa badan yahay boqor burhaan qaado malka wada birmanaya sidee boqor burhaan qaado burji boqor cismaan soo badraday boqor burhaan qaado amiinta baalaga simaan boqor burhaan qaado hogaamiyaasha maamulka Soomaalida iyo Soomaalida kaliya ma aha isagu waliba waxa weeye bulshooyinka ururka bulshooyinka wadamada bariga Afrika oo dhan buu wuxuu ka yahay hogaamiye ama isku duwe waa la yiri waxaa la yiraahdaa magaciisa Cabdirashiid Sheekh Cali Cabdirashiid soo dhaw waxaan rabaa marka hore munaasabadan inaan uga faa'iideysto inaan tacsi u diro dadkii Soomaalida ahaa ee ku leeday qaraxii ka dhacay hotel Maka al-Mukarrama ilaahay in uu jannadii firdawsa geeyo kuwii dhaawacmayna ilaahay uu caafimaad siiyo inta kadib wixii hadal ahaa oo dhan waa la yiri waxaan mar kale magaaladan ku soo dhaweynayaa boqor burhaan boqor muuse boqor burhaan ku soo dhawow magaalada Minneapolis waxaa ku nool shacab dhan 400,000 in ka badan dadka Soomaalidu waxay ku leeyihiin awood hadeertaan aad arkaysay in qof Soomaali ah oo maamulka magaalada kamid ah Cabdi Warsame uu iga horeeyay iyo qof kale oo Soomaali oo asagana kamid ah gudoonka waxbarashada anigana arrimaha East Africanka ama dadka bariga Afrika ka soo jeeda aan ugu qaybsanahay ku soo dhawow magaalada wixii hadal ahaa oo kaleeto waa la yiri waxaan aad ugu faraxsanahay ana maqlay boqornimada ka hor inaad qurbaha ku noolayd wadanka Sweden dadka uu kamid yahay boqor burhaan iyo suldaan Ibrow waxay wataan maskax ay ku fahmi karaan dhaqanka Soomaalida maanta uu marayo sababtoo ah waa mid ka sophistication sidii hore uu ahaan jiray marka ku soo dhawow magaalada mar kale waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu kula garab galo saldanada lagu doortay oo Soomaali oo dhan aad ku hogaamisid salaamu calaykum waxaan kaloo ku leeyahay in boqor burhaan wuxuu ka mid ahaa kulli in la socotaan in kala moogi 2012ka ayadoo 4.5 Soomaali lagu saleeyay shirkii Turki aan tagnay wuxuu ka mid ahaa raggii yiri wax 4.5 la dhaho
ma jiro beesh Soomaaliyeed shan baan nahay shan waa in la yiraahdaa raggii dhuhu ka mid ahaa inaad ogtihiin in kala mooyo golaha baarlamaanka gudihiisa laga hirgeliyay 4.5 waa la joojiyay shan qaybood shan beel baa leeyahay marka tirko macnaha midab kala sooca waagaas oo dagaalankiisa ku jiray ilaa haddana uu ku jiraa marka in conference-gaasna waa fursad inay siisin kala mooyo waan la socdayaasha la soocan ka mid ahaa arrinka kale oo weyn oo meeshan taagana wuxuu yahay dadka Soomaalida dibadda joogto hal mid uun hadda iska ilaalisaan qaasatan reer Minnesota waxaa ku nool 400,000 aad inta la qiyaasaysaan ogahay kulay idinka og in 100,000 ka badan Soomaaliya ku nool Twin City area sida la sheego haddii Soomaali midnimadeeda aan ku fikirno oo aan joojino 80kan community oo cid kasta community haddii la joojiyo hal community la sameeyo oo aan madaxdeedana la xiriirtaan waxaan hubnaa sida ururkan Apex la dhahay ee Yuhuudda leedahay juushka leeyihiin oo kale ina siyaasadda Soomaaliya aad Western country Americanka hogaamiye meel kasta aad wax bedeli kartaan inuu Ilaahay taas idin waafajiyo waan ka baryaynaa insha Allah adna boqor Burhaano waxaan ku leeyahay fursad baa haysataa odayaasha sida laga codsaday Soomaalida inta ku wada degan in aad qolo aad u aragtaa urur xisb u aragtaa aad ku waanaysaa midnimada si ugu shaqeyn lahaayeen inaad ku waanaysaa taasna waan ka codsan lahaa anigana hadal badan kulay ma wado insha Allah 2 isbuucan hadda jooga fursad ay ahayd inaan la kulmo safarkiis Yurub waan ogaa insha Allah wadankiina hool uu ka wada asaa idin sharxi doon haduu ilaa iraado ugaas Farcad Maxamed Ali ugaas ragaas oo isla wadayn aniga aan kamid ahaa kaasaan idin sheegi doon haduu ilaa iraado markii ugu dambeysay qarnaan ku wada kulanay ee geerida boqorka aan tagnay Allah u naxariisto waan ay suurtagal weysay cali masaarka inaan tago haddana waxaa fursad qaali ah oo aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo boqor Burhaan qormuuse ku soo dhawow haduu ilaa iraado ما شاء الله وما تسنتين الله يبارك ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دمان وحقرتك الصومالية مدشن فردية أقويانك مسؤولين تا إن أضياشا سلادين تا يواسيدا قبلها اللي يردا بهذا الصحافة دا أبوانين تا رجع يدمر بله علماء الدين ك دمانتي وحنا السلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحن آدي فرح سنة هاي إن نعاوك كلن كان قروح ده بدن وحن في ليا وكلن كي صدحات إن كي هبين كده ويتو عش شرفتي إن رين مينيسوتا من يابلس إن kii ka horeeyay oo anigoo idin ka maqan aad igu maamusteen xilliga cali masaarka iyo madashan quruxda badan oo caawa waxgarad badan oo Soomaaliyeed ay halkan fadhiyaan runtii waxaan u mahadcelinayaa ikhtiyaartii gudiyadii kala duwanaa ee gabdho iyo rag balaha ee soo agaasimay madashan quruxda badan waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran jasaa waxaan kale u mahadcelinayaa dadweynaha sharafta badan ee Soomaaliyeed oo run ahaantii aan isleeyahay yani waxa idin ka muuqata Soomaalinimada Soomaali jacaylka run ahaantii idinkana waxaan idin leeyahay khayr Allah idin siiyo Allah idin barakeeyo waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu kulankeenan ka dhigo kulan khayr madashana inuu ka dhigo madal layno ku dambi dhaafo run ahaantii halkan intii laga yiri hadal kale oo aan ku sii daro ma garan karo haddii buraanbur iyo gabay ay noqon lahayd hadday noqon lahayd tusaaleyn iyo muxuu ahaayey dhinac kasta waxaan u malaynayaa wax hadaloo halkan ka dhiman ma jiro midnimada iyo wadajirka idinka muuqda
ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay idin kordhiyo ilaahay idin siyaadiyo isjacaylkiina iyo sida aad madashaan usoo camirteen ilaahay weynaha inuu ka dhigo kuwo jannadana ku walaalooba adduunkana isku garabsada insha allah waxa wanaagsan iyo khayrka walaalayaal saad la socotaan safarkaygu wuxuu ahaa safar tan iyo maalintii caleemasaarka 25 bishii May ee sanadkiina ka tegay markii ummadda Soomaaliyeed ee isugu timi qardho oo aan filayo inta af Soomaaliga ku hadasha cid ka maqni markaa ma jirin yani dadku meel kuma soo wada ururi karaan laakiin cidii kasta oo metali ka dhayaa timi waxa ka yimi oo kaleeto dad ka baxsan Soomaaliya oo muxuu ahaayay ajaaniba Soomaalidu xilliga waxay ga codsatay maadaama dhibaato badan wadankii ka dhacay inaan u istaago inaan isla baadi doono Soomaali wada jirkeeda midnimadeeda qarannimadeedii sidii loo raadin lahaa runtii waxaan marnaba ay suurtoobi weyday maadaama xilkaas la yiri raadi inaan gurigayga iska joogo caruurtayda iyo reerkayga la joogo ilaa xilliga waxaan bilaabay inaan safarro gudaha ah iyo kuwo banaanka ah intaba inaan maro kuwa banaanka waxaan ka soo bilaabay wadamadan Scandinavianka UK Canada iyo caawa oo halkan aynu wada joogno runtii intii aan soo maray Soomaalidu sidaan si lamid ah ayay meel walba igu soo dhaweeyeen laakiin madashaan sidaan u buuxda iyo dadka inta tiro la eg waxaan filayaa inaanay meel laba aanay ka dhigin runtii waxa lagu farxo weeye waxaan filayaa sidaan habeenka dhawato casho sharafti ka iri Professor Saciid Saalax ayaa yiri codsiga inaan Minnesota inaan imaado runtii siduu ku tilmaamay iyo si ka sii wanaagsanba ayaa idinka muuqata khayr allah idin siiyo walaalayaal sidaad la socotaan waxa inagu dhacday dhibaato iyo burbur qaran ilaa laga soo bilaabo 19 markii qarannimadeeni burburdhay ummadda Soomaaliyeed waxay u kala irdhowday ama ay ku kala firdhay daafaha adduunka waxaynu u kala qaxnay 5 qaaradood waxaynu run ahaantii aynu noqonnay qaran yani dad qarannimo gaara meeshii ugu hooseysay ayaynu gaarnay waxaynu noqonnay dad aan mustaqbalkoodii madoobaaday 25 sano ayaynu waxaynu ku jirnay iska daba ka wareeg iyo dawlad la'aan iyo masiibo iyo dhibaatada aad ogtihiin oo shalay midii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda waddankeena waxaan ilaahay uga baryayaa dadkii ku dhintay iyo mas'uuliyiintii halka ku dhimatay oo kamid ahaa Yuusuf Barbari oo danjire aad wada taqaaniin oo Soomaaliya Geneva u fadhiyay mas'uuliyiin kaleeto waxgarad ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadii firdawsa ka waraakeeyo intii ku dhaawacantayna ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay u booga dhayo waxa daawadayaal oo barnaamijkii soo dhaweynta boqor burhaan boqor muuse waad ka daawanaysay TV-ga caalamiga Universal barnaamijkan ayaa waxa idin soo jeedinaya anigoo Maxamed Muuse Nuur waxa gacan iga siiyay barnaamijkan soo bixitaankiisa saaxiibkay Sakariya Aadan oo isagana gol sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka